السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع المجيب الدعوات. walaalahayga Soomaaliyeed isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh. Mawduucan maanta ka hadlayno waa kalsoonida nafta. Kalsooni waa dareenka aad ka qabto ama ku qabto naftaada, ama waa waxaad ka aaminsan tahay naftaada. Haddaad isku aragto qof aan waxba qabsan karin, nolosha ka dhacsan, nasiib daran, sidoo kale aan naftaada ku qabto ama ka qabto aragti taban, waxaad noqonaysaa col hortii jabay. Adiga iyo guul isma arki doontaan, waayo guushu waxay u martisaa qofka naftiisa ku kalsoon. Dhanka kale, inaad naftaada ku kalsoonaato micnaheeda ma aha inaad tahay qof isla weyni ku jirto, laakiinse haddii aad tahay qof isla qabweyn oo aan dadka ula dhaqmin si wanaagsan, taasi kalsooni ma aha ee waa cudur nafsaani ah. Marka waa muhiim inaad naftaada ku qabto kalsooni togan, taas oo ka aradan ama ka maqan isla weyni, aamintana inaad tahay qof muhiim ah oo wax qabsan kara. Kalsoonidu waa laf-dhabarka guusha. Haddii aysan kalsooni jirin, way adag tahay inaad si qurux badan u guulaysato. Dhanka kale, kalsooni darradu iyadana waxay dhabarka ka jabisaa guusha. Waxay kaa dhigtaa qof aan dhaqdhaqaaqi karin, waayo waxay kugu beeraysaa cabsi aan jirin. Kalsooni darradu waxay mararka qaar saameyn ku yeelataa nolosha qoyska, shaqada iyo waxbarashada. Haddii aad tahay ruux aan naftiisa ku kalsooneen, way kugu adkaanaysaa sidii aad u maarayn lahayd dhibaatooyinka kusoo wajaha. Una fiirso, maskaxda bini'aadamka waxay inta badan isku shuqlisaa ururinta fariimaha taban ama fariimaha xun. Culimada darsa cilmiga nafsiga waxay sheegaan haddii qofka badsado fikradaha taban ee xumaha sheegaha ah, waxay qofka dhaxal siisaa inuu noqdo qof aan waxba qabsan karin. Fikradahaasi waxay isku bedeli karaan kuwo ficil ah, dhaqan iyo caado ah. Kalsoonidu waa mid ka mid ah albaabada ugu muhiimsan ee laga galo guusha. Haddii aad kalsooni isku qabto, shaki kuma jiro inaad noqonayso qof ka guul gaari kara guul walba oo maankiisa ku jirto. Diinteena suuban waxayna baraysaa inaynu noqono kuwa dhinac kasta kale kalsooni buuxda. Keli aysan ahayn wax ku saabsan nolosha, balse ay tahay in sideedaba aynu la nimaano go'aan qaadasho ku dhisan kalsooni weyn. Alle wuxuu leeyahay, waxaad tala saarataa eebbe aan dhiman ee nool mar kasta. Taasina waa arrinta ugu adag ee ku baraysa in taladu tahay midda Alle oo keliya. Ha ku qancin wax yar oo dhalanteed ah, balse noqo qof hankiisu weyn yahay oo leh yool. Iskana ilaali shakiga badan, waayo wuxuu keenaa kalsooni darro, sababi karta guul darro. Waxaadna xasuusataa xikmadda odhanaysa, haddaad doonayso inaad la duusho shimbirka hawada sare maraya, waqti badan yuusan kaaga lumin digaagga dhulka hoose socda. Guushu iyo guuldarradu labaduba ma aha wax mar keli ah iska dhaca, ee waa natiijada dadaal socday waqti badan. Markaad diido inay ku hakiyaan duruufaha isbedelaya ee aad weerar joogto ah ku hayso yoolalkaaga, la seexata lana soo toosto, markaas ayay macno yeelanaysaa kalsoonida nafta. Dabcan, kalsoonida nafta waa furaha guusha, waana sharafta uu ku faano guulaysta walba. Inta aad yara nasato, naftaada waqti la qaadato, ka fikir sida ay wax u socdaan, isweydii howlihii ku soo maray, kuwa aad ku guulaysatay iyo kuwa aad ku guuldareysatayba. Kala sheekaysa naftaada howlaha ku horyaal ee u baahan inaad dhammaystirato. Waxaan dhammaantiin idinka tegayaa guul iyo gobonimo aan dhammaad lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.